ومن عالم المحشر إلى عالم الميزان، ومن عالم الميزان إلى عالم الصراط، ومن عالم الصراط إلى الجنة أم إلى النار. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. العاقل كل العاقل من عرف الحقيقة، من استعد للموت ولما بعد الموت، من عرف مقصد حياته. العاقل كل العاقل. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. qofka caaqilka qofka dhaqaalaha badanna maaha, qofka adduunyada urursada maaha. الدنيا دار من لا دار له بو النبي عليه الصلاة والسلام. الدنيا waxay daar u tahay ninkaan aakhira daar ku lahayn. ومال من لا مال له. dhaqaalahan adduunyadu wuxuu dhaqaalo u yahay ninkaan dhaqaalo aakhira ku lahayn. lahaa yajmacu man laa caqla lahu. adduunyada waxaa ururiya buu nebigu yidhi ninaan caqli lahayn. caaqilku waa kee? waa ninka garta wixii adduunya kii keenay, waa ninka garta kii keenay iyo wuxuu u keenay iyo meesha loo socdo. manakisu nnaasi wa akramu nnaasi ya rasuul allah. masaajidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam buu nin soo galay, nin acraabi oo reer miya. markaasuu su-aasha nabiga u jeediyey, yaa rasuul allah, dadka ninkee baa ugu caqli badan uguna sharaf badan buu ka yidhi. umaba dheeraane wuxuu yidhi, akharuhum lilmowti dikra wa ashadduhum isticdaadan lahu ulaa'ika hum lakyaas dahabuu bisharafi dunya wa karaamati alaakhira. dadka waxaa ugu caqli badan uguna sharaf badan kuwa inta badan geerida iyo aakhira xasuusanaya, maalinba maalinta ka dambaysana saayida aakhira ziyaadsanaya. kuwaasaa cuqaala buu nebigu yidhi, sharaftii adduunyada iyo karaamadda aakhirana kuwaasaa la tegay buu yidhi. sharafta aakhiro iyo karaamadii aakhiro iyo karaamadda adduunyada dadka ilaahay yaqaanaa la tegay. dadka meeshay ka yimaadeen iyo meeshay u socdaan u kala caddahay baa yaqaanaa. يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل. بنبي كويل أبو ذر، يا أبا ذر، يا أبا ذر بكير الدون إذا جديد سو بدو يقول دار توي كل غيه سعيدنا الزيادة سفر كودير يا هاي حكود دجن ولا لك يا مسلم كو شو وقتي وحالك يا إلى هاي أجي هاي حكو قناعة في الدين لما أقوله قناعة في الدنيا بالله أقول طاعتي عبادتي دينتي انت هايسته ولغا كو قنعن. اما ادويدي كسبغي ارزاقدا انت الهي كسيه كو قنع تاسا مستحب وجدي. وابا در ازهد امتي واعبدها بالنبي قولي وانك امديده ugu zaahidsan ugu cibaado badan. man arada an yandura ila Isa ibn Maryam falyandur ila Abi Dar buu nabigu yidhi. ninkii doonaya nabi Ciise inuu arko Aba Dar al-Ghifari ha arka buu yidhi. zuhdigiisa iyo sidoo adduunyada uga zaahiday. kaasaa nebigu dardaaranka soo mariyuu leeyahay, abaadarow doonida jadiidso, iimaanka jadiidso, qalbigaaga adduunyada kala dagaalam, qalbigaaga cadamada lacagta maxabada lacagta kala dagaalam. baddu way ku liqi haddii kale, shahwaad iyo khaflad baa adduunyada lagu sheeriyo way ku liqi haddii kale. wa akthar izaada fa ina safara tawiil. sahaydana ziyaadso safarku uu dheer yahay buu ka yidhi abu darow, safarku uu dheer yahay. sayidina abaa hurayra radia allahu canhu ayaa sankaraadkii ooyey. markaasaa lagu yidhi abaa hurayra maxaa loo oyeysaa? saaxibu rasuulillaahi baa tahee. wuxuu yidhi abkii liqilati zaadii wa bucda safarii. sahaydaan wata yarideeda iyo safarkay sugaya islahayn buu yidhi. hada abu dar. cumar radia allahu canhu waa ninkii nebigu yidhi, low kaana bacdii nabiyan lakaana cumar. haddii aniga nebi dabaday iman lahaa cumar baa nebi noqon lahaa buu rasuulku yidhi. jannadaan galay buu nebigu yidhi habeenkii micraashka qasri jannada ku yaalla ayaan arkay, gabadh xawraa ayaa igaga soo baxday buu rasuulku yidhi. markaasaan ku yidhi liman hada alqasri, gurigan ayaa loo diyaariyey qasriga intan leeg. waxay tihi nin carab ka dhashaa loo diyaariyey, anigaaba carabe ma cid kalaa? haa nin qurayshaa loo diyaariyey, quraysh ka dhashay, anigaaba qurayshe ma cid kalaa? haa nin ummadda nebi maxamedaa loo diyaariyey, anigaaba muxamede ma cid kalaa? haa bay tiri cumar bnu khadaab baa qasrigan loo diyaariyey. hada cumar. walaakiin muxuu yidhi masaajidkii nebiga khudbadu ka jeediyey wuxuu yidhi, low naadaa min asamaa kullukum daakhiluuna aljannata ilaa rajulan waaxidan lakhiftu an akuuna huwa. haddii samada laga dhawaaqoo la yidhaha bini aadanka o dhan jannay galayaan, hal nin keliya naar ka galaaya, ninkaas inay ani tahan u malayn buu odhan jiray. qanaaca fi diin lama ogolo walaalkayga muslimkow. diinta intaad haysato ha ku qancin.
adduunyada intaad haysato ku qanac taasaa mustaxab ah asxaabu rasuul sala allahu calayhi wasalam qarnigan qurunta adduunyada soo martay qarniga u khayr badnaa bay joogeen saasayna ilaahay uga cabsoonayeen adduunyadu lama weynayn aakhiradaa la weynayd asbaabta iyo ashyaadu lama weynayna camalka saalix iyo iimaankaa la weynaa makhluuqu lama weynayna ilaha khaaliqa amarkiisaa la weynaa man lam yardaa biqadaa'i walam yasbir ilbalaa'i walam yashkur calaa nicmaa'i falyakhruj min bayna asamaa'i wa ardi falyaltamis rabban siwaa'i baa ilahay yidhi xadiis alqudsi man lam yardaa biqadaa'i qadaha wixii aan ku xakuma addoonka raalli aanan ku ahayn nicmadaydana aanay igu shukriyaynin balaayada aanu keenana ku sabraynin samadii arlada anigaa samaystay ha iga tago meel kale ha qabto rabbi kalena ha samaystay baa ilaahay yidhi ilaa ayna ha ku mashquulin shahawaadka arsaaqad hungurigu waxaad cunayso inuunan ku seejin daacadda ilaahay laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah ay can daacati illah qur-aanku waa dacwad dhammaystiran weeyaan waa dacwad taama ilaahay baa dacwadayna siinaya ubadkaan u shaqeeyaa ubadkaan u ordayaa iyo xoolahaagaad xisaabinaysa daacadda ilahay inay ku seejin النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها الدنيا هل كان جنة النار تبا لقد يرسنيا هل كان لقد يرسنيا هل كان جنة لقد يرسنيا نارتين هل كانوا لقد يرسنيا أعماشي جنة لقوقلي هل كان لقد قادنيا أعماشي نارت لقوقلي هل كانوا لقد قادنيا فهيلو من طاعة إلهي أفر عدو بقرآن كإلهي نوشيغي أفر تعدو نيو الله والله دقالم نفتاد وعدو ويان إن النفس لأمارة بالسوء الديد وعدو جيني ويان فلا تغرنكم الحياة الدنيا شيطانك وعدو جيني ويان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا هود وعدو جيني ويان أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هادعين نفتاد شيطان كان هادعين الديد هادعين طاعة إلهي إنك سيجن adduunyada ilaahay ku jecelyahay uusiya ku jecelayna uusiya nabigeena kaleey salaatu wassalaam ayaa maalin ku seexday xasiir sallibu ku seexday dhagaxdii baa markaa feeraha ka qabatay umar baa dul yimid oo lilmeeyay oo ku kacay nabigu kaleey salaatu wassalaam yaa umar buu keenay maxaa ka oohinaya wuxuu yaa rasuulallah waxa iga oohinayay buu adigoo rasuulka ilaahay ayaa dhagaxdu feeraha ka qabanaysa markaasuu nabigu ku yiri umar maad iga shikisantahay aniga may kala kama shikisaniye waxa ii cuntamila adigoo rasuulka ilaahay oo makhluuqa ugu khayr badana inay dhagaxdu feedhaha ka qabato kisra iyo qaysarna sirridahaba ay ku seexdaan jawaabta dhageyso walaalkayga muslimka wuxuu yiri yaa umar ama tarda an takuna lana al-aakhirah wa lahum ad-dunya yaa umar ma adra liku hayn inay raaxada adduunyada iyo kulixdanka sana ay qaataan inaguna raaxada aakhirah aan iska qaadano muslimku mu'minku la dooni maayo sida dadka kale inuu fikiro meel baad u socotaa tadamba ha kula weynaato tanna ka tag laguma le tadamba hadday kula weynaato tan adduunyadu way macaanaan hadba qofka inta lacagtu u ziyaado raaxadu uma ziyaade ogow hadba qofka inta adduunyadu u ziyaado walwali walbaharka ku ziyaada hadba qofka inta iimaanka iyo diinta iyo qurbi min Allah uu dhawaadana raaxada ayaa u ziyaadaysa man amila salihan من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قفك عمل وناكسن لي ما دا عمل وناكسن شنطا وقتي والجمع كتكتا اياك مدى عملك وناكسن من ذكر أو أنثى لبي يددك متكو دوني بهان نغضو با إلى هيدي لبي يددك متكو دوني بهان نغضو وهو مؤمن حالو قفك مؤمن هو إيمان ليهي فلنحيينه حياة طيبة وكنا لينا وكنا لينا نلن لقنا لا توبو وناكسن مفسرين توحيد هذا نلشو وناكسن واصدح ويام qalbiga ku daga arsaaqada kugu filaata iyo dadka oo ku jeclaada saddexda wuxuu ilaahay ku ballan qaaday inuu ku bixin iimaan iyo amal saalix hadii dadka laga helo iimaan iyo amal saalix marka lagu leeyahay diinta ilaahay qabso awaamirta ilaahay adkayso maaha adduunyada ka nuqsaamayse bal adduunyadu way ku ziyaadaysaa raaxa ku ziyaadaysaa amniga ku ziyaadaya man kanat ad-dunya
همه جعله الله الفقر بين عينيه وفرغ شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له نك همي سكدق أبو الرسول كده الدوية قبو كفكرة آخرتي رنتها إن داقة كسارة إسكاين لوبا لابد إن لودين تود عيسى فقرك الله سارة أرميه سنة بري قلبات بار رب العزة كوكلا شيريا الدوية ما بها لإنتي الله قدر مويانه ومن كانت الآخرة همه نك همي سكدق أبو الرسول كده آخره جعله الله غناه في قلبك يا غنى الراحل وقبوحيا وجمع الله شمله أرميه سودنا إلهي بس كوكو سودويا وأتت الدنيا وهي راغمة الدوية وحي أتما دا يدو سند اللسان وهو سعتيت ما داب رسول كويري هكسي جسن طاعة إلهي والله كمسلم كو دين تنوحو إلهي نوسيي سيادون كان يا آخران نقول لي بانو منافع الدين منفعة الدين تو آخرة كلية كمان بالعبانتين الدوية دين تلقوا درجيا الدوية دين تعز لقوها ليا الدون كنا دين الراحة لقوها ليا الدوية دين تأمني النبتقلية لقوها ليا يا طالب الرزق في الدنيا بقوته قد كمان تنيت وضبط طاعد إلى واحد قد في صواهم قريس اسمع يا طالب الرزق في الدنيا بقوته تدور فيها من بلد إلى بلد أتعبت نفسك ما لست تدركه وضاع عمك في همر وفي نكد لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا شربة ماء غير رزقك لم تجدي هداد هنقرق ملك أمرته اسكدا أرلنا انتو تشغى كويدو هذا السماء الشغى لقوقو الشغى وتجدون تشغى كبشبيو كو قرين مسو قاديس أقصر عناءك فإن الرزق منقسم يأتي إليك ولو في جبهة الأسد تعبكاga yareeha isdaalin xoogaaga iyo caqligaaga iyo cimrigaaga adduunyada ha ku dayicine kala reebo oo aakhiradaadi ha seegin arsaaqadaadu hadday libaax foodiisa taallo ayadaa ku imanayse laa tacjalanna fa ina risqa laysa bilcajali ha degdegin arsaaqada xoog iyo qafqaf laguma hele risqu maktuuban bilawxi maca alajali arsaaqadaadi iyo cimrigaagu waxay ku qoran yihin loox maxfuudka ma dhimanaysid ilaa arsaaqadaada aad dhamaysatid maahayn لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا ولكنه خلق الإنسان من عجلي هذا الصبر لهين رزق يسقى إن الصوت دون لها لكن بني آدم كان أسكت دق يمر والبا وحول بدق دق بكدونيا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم القائل الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن لكل أم يتبعها ولدها أفر شيء قف كستوى مسلم عيال لقربا إنه إيمانك سيل على الصدق inuu iimaanka jadiidiyo inuu iimaanka ziyaadsado iyo inuu iimaanka caalamkao dhan dadka ugu yeedho iimaanka diintaada ilaalso diintaada mar walba cusboonaysiiso diintaada baro diintan caalamkao dhan baa ilaahay ugu talagalee risaalada caalamka siday u gaari lahayn adiga laga rabaa diinta ilaalso kuna qanac diinta ku qanac سيدنا عمر رضي الله عنه أيا نن يهودي وصاحبي أيهين وري بني قريظ مدينة كصومري كلمات دينتي النبي موسى كمذا أيو كصوقري وحو صوق لمساجد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن ثابت النبي وضفر ديبو ويمدي ألا عرضها عليك يا رسول الله يا رسول الله مكوبا دقا نري بني قريظ صاحبا هايبان كلمات توراة كصوقري فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام مذهب النبي قاس بدلي بلو فرسو مذهب كي باس بدلي مذهب كي رسولك
cabdullaahi baa yidhi yaa cumar hakiladka ummuk waydaa gablantee nebiga wejigiisa miyaanan cadhada ka dareemin cumar u naxay warqaddii buu tuuray wuxuu yidhi radinaa billaahi rabban ilaahay rabbinimadiisa raalli baan ku noqonnay wa bilislaami diinan diinta islaamkana waan ku qanacnay oo raalli baan ku nahay dhaqan ahaan raalli baan ugu nahay caqiida iyo cilmi iyo cibaadaba wa bimuxamadin sala allahu calayhi wasalam rasuulan wa nabiya nebi maxamed risaaladiisa iyo nebinimadiisana waan ku qanacnay buuhi raalli baan ku nahay fasura nebigu uu farxay mambarkii buu fuulay wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ismac yaa akhi dhegayso dad aan waxba ahayn oo la isku ekaysiiyo dadkeennu isku ekaysiiyaan iska daaye undur hadalka nebigu ku hadlay calayhi salaatu wasalaam low asbaxa muusa fiikum uma itabactumuuhu wa taraktumuunii la dalaltum buu yidhi haddii maanta nebi muuse uu nidhex iman lahaa anoo inidhex taagan oo aad isaga raaci lahaydeen waad hallowdeen buu rasuulku yidhi antum xadii min alumam wa ana xadukum min annabiyiin nasiib ayaad ii tihiin buuhi ummadihii aan ka helay nasiib ayaan ini yahay buuhi nebiyadii aad ka hesheen buu rasuulku yidhi haddii nebi muuse maanta uu iman lahaa uu shareecadiisii towraad la iman lahaa ood aniga iga tegi lahaydeen ood isaga raaci lahaydeen waad hallowdeen buu rasuulku yidhi antum xadii min alumam ummaddii ummadaha ugu khayr badnayd ummadda abuuritaanka ummadaha ugu dambaysa jannadana gelitaanka ugu horraysa ummadda jannada inta badan degaysa maadaama oo tihiin nasiib ayaa inagu helay buu nebigu uhi nasiibkayga ay kii siiyey maadaamoon aniguna ahay nebigii nebiyada ugu dambeeyey imaamkii ambiyada maadaamoon ahay nasiib ayaad igu hesheen buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ee shareecadayda iyo diintayda iyo milladayda iyo sunnadayda iyo dariiqadayda ku qanca buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam wax lagu badilan karaa ma jiro dariiqadiisa ummaddiisii baa ilaahay naga dhigay ummaddan waa ummadda ummadaha ugu khayr badan ana wuxuu nebigu yidhi xurimat iljannatu cala alambiyaa xataa adkhulahaa jannada nebiyadu geli maayana waa laga xarimay ilaa anugu aan ka gala maahine wa xurimat iljannatu cala alumam xataa tadkhula ummatii ummaduhuna jannada geli maayaan ilaa ummadaydu ay gasho maahine qabuuraha ayuu nebigu ziyaartay baqiic markaasuu u duceeyey wadidtu low annii ra'aytu ikhwaanii waxaan jeclaaday buulan jeclaysan lahaa inaan walaalahay arki lahaa asxaabtu waxay ku yidhaahdeen aw walasnaa ikhwaanaka miyaan anaku walaalaha ahayn laa antum asxaabii ininku asxaabtayda tihiine walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doona ee rumayn doona iyo kuwa aniga arag buu rasuulku yidhi sideed u garan doontaa saxaabadu waxay yidhahdeen dadkaas maabad aragin adigu iyakuna kumay arag sideed u garan doontaa qiyaamaha halkay wejiga dhulka dhigayeen ay waysada marinayeen oo iftiimaysa ayay banka hawdkay ugu iman doonaan buu rasuulku yidhi 120 saf ayaa jannada galaysa buu nebigu yidhi dadka ahlu jannuhu waa 120 saf 8 saf baa ummadayda buu rasuulku yidhi atardawna an takunu ruba ahli aljanna qulna bala cabdullaahi ibn mascuud baa yidhi nebiga maalina uu riyo wuxuu nagu yidhi raallima ku tihiin ummadaha marka loo qaybiyo 4 qaybood dadka jannada galaya 4 marka loo qaybiyo qayb inaad noqotaan raallima ku tihiin asxaabtu waxay yidhahdeen haa atardawna an takunu thulutha ahli aljanna ahlu jannaha marka 3 loo qaybiyo qayb inaad noqotaanna ma ku tihiin raalli baan nahay yidhahdeen markaasuu nebigu yidhi waladii nafsu muxamadin biyadihi innii la arjuu an takunu nisfa ahli aljanna waxaan rajaynayaa oon ku rajo weynahay kay abuuray baan ku dhaartee jannada inaad kala badh in ku degaysaan baan ku rajo weynahay buu rasuulku yidhi ilaahay ummaddiisii buu inaga dhigay ilaahay uu ina karaameeyey wuxuu inagu karaameeyey waa maxay ummadihii hore shay keliya unbaa laga rabay keliya bas ilaahay inay ka yaabaan ay caabudaan amaa ummaddan 2 shay baa laga rabaa 2 shay ilaahay inaad ka yaabto waa lagaa rabaa ilaahay inaad caabuddo waa lagaa rabaa aakhiradan inaad u shaqaysata waa lagaa rabaa khalqiga adduunyada kugula noole bashariyadda inaad arrintaa ugu yeedhana waa lagaa rabaa maqarin nebigu uu caddeeyey alaa laa nabiya bacdii walaa ummata bacdikum mar buu nebigu cimrigiisa xajiyey mar keliya markiina wuxuu yidhi ani nebi iga dambeeye ma jiro ummad iniga dambaysaana ma jirtee alaa falyuballaga shaahida minkum alghaa'iba kiina maanta ila jooga i maqlayow kiina maqan gaadhsii buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam balliquu canii adduu canii raximakum allah allah inii naxariistee ammaanadaa qaadoo caalamka iga gaadhsiiya allaahuma sur man nasara diina muxamed ilaahaw ninkii diintayda u gargaar buu rasuulku yidhi nadara allahu imra'an samica maqaalatii maalinka wejiyadu ay madoobaanayaan banka qiyaame wejigiisa allaha nuuriyo ninka hal aayada ama hal xadiisa iga maqlay siduu iga maqlay ummadda u gaadhsiiyey buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ummaddan waa ummad ilaahay doortay sharaftaa iyo karaamadda ummaddan waxay ku yeelatay waa shaqadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam
shaqadaas markay caalamka shaqada laga tagayna dhibaatada maanta islaamka ku dhacday gaar ahaan dalkeena ku dhacday wax kala ma aha waa tarku dacwada markii laga tagay dhibaata timiday إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم مركز حولها حول دقتي اسكر حول دقتا أدو جيستان هي بيرها قودتان تجارة أدو كعدان شغدي دينتي دلالكي هلقا دينتي أتكتكتان إلهي الدل منهوين يا دلي نقصاري ما يدلقا نقصي بمايو إلا دينتي نادو نقطان ما هنا إلى دينكم بالله إلى دينكم دينتو وحي باقي كن نغنسا صلاة ماها صونك معها حشك معها دين توحي باقي كل نغنيسا في كل زمان وإن لها جهد الدعوة مر اللي مركي دين تواصل دعوة إلى هاي وحصوص على علماء الربانيين مر لبات سوء عصبوني سيسا توحيد كي إيمانك يا أخلاق الإسلام كلها نيكا مؤذن كامركو ايراما يبو رسولكو يري شيطانكو قفكا وكبحا نحية وان ميلبو سي سعدا ساقو حاجة دم النقص كسي دينيا مركو مؤذنكو اذانكا دميانا وصولا ما قفكا ايو صوغلا اقامة دمركا لقود افتنا الشيطانكو وبحصدا مركا اقامة دماتنا قفكو صوغلا صلاة دي سي قفكي بو كلا نحمرا وحيو اللو غيبو حسوسيا الا قفكو كقروا يوحبتو كذيبا صلاة دوا فرد اذانكو والسنة شيطانكم محو صلاة وقبح سنة ياهي وصنها وقبح سنة يا لأن آذانك ودعوة صلاة وعبادة ويان افهم المسألة ولكن مسلم كو فهم تكليت كو بدادي سو كنا ما تقلي سعديقية مجتمع عقبة ودعوة ويان عمر من مربو النبي يقول التوب شيطانة توقع قولوا كسي وعدا لأن عمر صاحب الحق بها صاحب الحق شيطانكو كما عبسوني عبادة صلاة شيطانكو وحو كعبسوني وآذانك اللهم رب هذه الدعوة التامة لأن آذانك ودعوة ما يسترون وياه صدا درتي حدان دونينا إنا بدبانو فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء دعوة محاكرة لقوها ليا فساد كدعايا عقوبة إيمان يسنيك الداعية الدين تكشغيا وبدباديا إمام بخاري كتاب قصة وحكو ساري نبي عليه الصلاة والسلام يا إلي قرية با إلهي وصدر ملك سو هلاك با لقيري قرية سو هلاك ملقي مركو يمدي وحوار كنين صالح وعابدة او إلهي سفي عن علاقة ولا لا مركاسو يا ربي يلي قرية دانا دي قتل سو هلاك أدون صالح وعابدة كجري واسدي إلهي يحيري فابدأ به عذابك حقي سكبلاب لم يتعمر وجهه ساعة فيا dadka aniga ya caasina ya geyrkii caabudaya ee macsiyada dhexda baalanaya hal mar kaliya wajiso kama doorsoomino kama murugoone uquubadii cadaabka xaqiisa ka bilaab la yiri ala wasallu wa sallimu ala man umirtum bis salati alayhi faqad qala Allah tabaaraka wa ta'ala inna Allah wa malaa'ikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله محمد وأزواجه وأصحابه وأهل بيته الطاهرين الطيبين وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مضرودا ولا محروما اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك أمرتنا فتركنا نهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين يا عزيز في ملكه ويا حكيم في صنعه ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن لكل أم يتبعها ولدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق التمرة، ومن لم يجد فبكلمة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إلهي تبارك وتعالى waa muncim, isagaa inoo nicmeeyey. nicmadaha ilaahay nagu galladaystayna lama tirin karaayo, lamana soo koobi karaayo. hase ahaatee nicmadaha ilaahay uu bini aadanka siiyo laba nicmadood bay u kala baxaan: nicmad yar iyo nicmad weyn. nicmadda yar bini aadanka oo dhan bay maaragtaanay ka dhaxaysaa. nicmadda weynina dad gaara ayaa khaas u tahay. nicmadda yar muslimkuna uu haysan karaa, kaan muslimka ahayna uu haysan karaa. waxaa ka mid a awalan ilaahay wuxuu ina siiyey nicmatul iijaad. ilaahay isagaa ina jirsiiyey. maan joogi jirin adduunyadan, ilaahay isagaa ina jirsiiyey. hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuura. zaman ayaa waqti ayaa caalamkan soo maray
oo bini aadankan wax la sheegaba uusan ahayn. mid kastoo halkaa fadhiya haddii da'diisa la weydiiyo uu sheegi 30 jir 40 jir 50 jir haluma jar intaa doontaba sheego. intaa ka hor halkeed joogaysa? lasta bishay, horay waxba umaad ahaanayn, imikana waxba ma tihid, ee ilaahay unbaa ku jirsiiyey. iraadadiisa iyo amarka ilaahayna waad ku socotaa. ilaahay bayna keenay adduunyadan uu ina jirsiiyey, wuxuuna inaga dhigay makhluuqaadkiisa ka ugu karaamo badan buu inaga dhigay. innii jaacilun fi lardi khaliifa. markuu ilaahay nebi aadan calayhi salaam uu abuurayey, malaa'igtii buu u bishaareeyuu ku yidhi waxaan samaynayaa khaliifkaygii baan samaysanayaa. khaliif maxay khaliif maxay ka dhigan tahay? arlada ku awaamirtayda ku fuliya, arlada ku aniga wakiiliga noqda, oo mashacayga iyo waxaan doonaya yeela, oo aniga i garto, aniga i adeeca, oo awaamirtayda arlada ku camira ayaan abuuraya baa ilaahay yidhi. malaa'igtu waxay yidhahdeen ma waxaad ka yeelaysaa ku arlada ku dul fasaada oo dhiigga daadiya? haddaad tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo cibaado doonaysana annakaa ku caabudayno nuuraaniyiinoo ku caasinayne. ilaahay wuxuu ku jawaabuu yidhi innii aclamu maa laa taclamuun. waxaan ogahay waxaanad idinku ogeyn ayaan ogahay baa ilaahay yidhi. marka bashar buu ilaahay naga dhigay. walaqad karamnaa bani aadama baa ilaahay yidhi. bani aadanka waan karaamaynay. wa xamalnaahum fi lbari waalbaxri, bariga iyo baddaba waan xambaarsiinay. warasaqnaahum min aldayibaat, arsaaqada ta ugu wanaagsanna waan ku arsaaqnay. wafadalnaahum calaa kaiirin miman khalaqnaa tafdiila, khalqi fara badan oon sameeyena insaankan aan ka karaameeyey baa ilaahay yidhi. marka nicmatu linsaaniya waa nicmad weeyaan, laakiin nicmadda muslimiinta keliya gaar uma eh, balka kale aan muslimka haynba nicmadda uu la wadaagaa. waa bashar, ka majuusiga caleeda caabudaya iyo ka dabka caabudaya iyo ka wuxuu samaystay caabudaya iyo kaa muslimka ilaahay caabudayaba nicmaddaas waa ay u dhaxaysaayo dadkao dhan waa bani aadam weeyaan. nicmadda yar waxaa kaloo ka mida baa la yidhi arsaaqaddu waa nicmad weeyaan. arsaaqadan ilaahay muslimiinta gaar uma siiye, bal kuwa kalena arsaaqadda uu siiyaa. cabdii laka calaya risqaka waliya calayka fariidatun in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika. addoonkaygiiyo baa ilaahay yidhi adigana waajibaad iyo awaamir iyo axkaam baan ku saaray, aniguna arsaaqadaadii baan ballan qaaday inaan ku siinaayo. haddiid fariidii iyo waajibaadkii aan ku saaray aad ka tegtana anu arsaaqada kaa goosan maayo baa ilaahay yidhi. arsaaqadu waa nicmad weeyaan, laakiin waa nicmad caama, dadkao dhan bay ka dhexaysaa. nebi ibraahim calayhi salaam martiqaadkuu aada u jeclaa, keligii cunto ma cunayn ilaa marti uu la raadsada maahine. nin martiya ayaa u yimiday, markaasuu neef u qalay, cuntadiibuu u dhigay. markuu ninkii cuntadii u fadhiistay ayaa ninkii halkaa wuxuu ku sitaa sanab uu isagu samaystay. khashab uu caabudayu halkaa ku sitaa, markaa khashabkii baa ka soo dhacay. ibraahim calayhi salaam uu ka cadhooday, wuxuu yidhi soco buu yidhi kuma siinaya cuntadayde, liannaka hayrullahi baad caabuddaa. uu ka socday ninkii, jibriil baa u yimida calayhi salaam. yaa ibraahim, ilaahay uu kusoo salaamaya, wuxuuna kaa yidhi addoonkaa maxaad u erido cuntada u siin weyday? markaasuu yidhi yaa rabbi, ibraahim calayhi salaam waxaa lagu yaqaanay daa'iman caqiidada iyo tawxiidkiisu cajiib buu ahaa. uffin lakum walima tacbuduuna buu yidhi, ininkii waxaad caabudaysaanba uf baan nigida buu yidhi. wuxuu yidhi ninkaasi ilaahay khayrkii buu caabuday hoosta ku haystay. yaa jibriil, ilaahay baa yaa jibriil ku dheh khaliilkayga, ma maalin keliyuu ku yimid daad cunto siini weydee 70 sano sanabkaa uu samaystay caabudaa on weliba ku arsaaqaa baa ilaahay yidhi. rasaaq waa ilaahay. arsaaqaddu waa nicmad weeyaan. nicmaddaasi gaal iyo islaamba waa u siman tahay. bashar caqligu waa nicmad weeyaan, caqligaa dadka kaleba way kula wadaagaan. maqalku waa nicmad weeyaan, nicmadda maqalka dadkao dhan baa kula wadaaga. araggu waa nicmad weeyaan, akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a wajacala lakum alsamca waalabsaara waalaf'ida lacalakum tashkuruun qaliilan maa tashkuruun. hooyooyinkiin ayuu niga soo saaray uurkooga ilaahay ininkoo waxba garanayn, markaasuu maqal inii yeelay, arag buu ini siiyey, qalbi buu ina siiyey, bashar buu inaga dhigay. nicmaddaasina waa nicmad cumuumiya, nicmaddaas dadkao dhan bay ka dhaxaysaa. mancim waa ilaahay. wamaa asbaxa minkum min nicmatin fa min allah wamaa bikum min nicmatin fa min allah. waxalli waxaa nicmadaad haysataan ee gabalku iniila dhacayo, waaguna iniigu baryaayo, ilaahay baa ini siiyey. koonka ilaahay baa inii sakhiray, cadceedda ilaahay baa soo saaraya, amarka ilaahay baa ku soo baxaysa, amarka ilahay baa ku dhacaysaa.
dhulka aad ku socotay ilaahay baa kuu ballaadhiyey wasamaa'a banaynaaha biaydin wa innaa lamuusicuun waalarda farashnaaha fa nicma almaahiduun wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacallakum tadakkaruun fafiruu ila allah. samada ilaahay baa sameeyey oo ilaahay gacantiisuu samada ku sameeyey gacantiisa. dhulka ilaahay baa farrishay oo ballaadhiyey. shay kastana laba ayaan ka dhignay baa ilahay dhisa aduu antowdaan. dharaar iyo habeen, dayax iyo cadcaad, kulayl iyo qabow, abaar iyo barwaaqo, nabadgelyo iyo cabsi, nolol iyo geeri, xanuun iyo caafimaad, lab iyo dhidig, faqiir iyo hani, xanuun iyo caafimaad, faqri iyo hina, cize iyo dilla. shay walba laba ayaan ka dhignay baa ilahay dhisa u antowdaan. ee fafiruu ila allah, xagga eebbihiina u yaaca, xagga makhluuqa ha u yaacina. hayrullaahi ka yaaca oo ilaahay xaggiisa u yaaca. man khaafa shay-an haraba minhu waman khaafa allaha haraba ilayhi. ninka shay ka cabsada, shayga uu ka baxsadaa uu ka ordaa. ninka ilaahay ka cabsadana ilaahay xaggiisa u ordaa. haddii libaax hadda aad ka cabsato waad ka baxsan. haddii ilaahay aad ka cabsato xaggeed u baxsan? xaggiisa umaad u baxsan. meel kaloo loo baxsanaya ma jirto. meel kaloo la isku dhiibaya ma jirto. xaggiisa isku dhiib. taskhiir ilaahay insaankan isagaa koonka u sakhiray. sakhara lakum maa fi lardi jamiican. barrigiibuu kuu sakhiray, buurihiibuu kuu sakhiray, baddiibuu kuu sakhiray, hawadiibuu kuu sakhiray, kaa'inaadka o dhan buu adiga kuu sakhiray. xoolihiibuu kuu sakhiray. wa ina lakum fi lancaami lacibrah nusqiikum mima fii butuunihi min bayni farthin wadamin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin baa ilaahay yidhi. wa ina lakum fi lancaam, nicmowlaydaad haysataana cibra inigu sugan baa ilaahay yidhi. nusqiikum waa niga waraabinaa mima fii butuunihi, shayga caloosheeda ay ku haysato caanahaasoon ka soo dhex saarna baa ilaahay yidhi. dhiigiyo uusinta udhexaysaa ka soo saarnaa baa la yidhi. caano cad. taskhiir xoolihii baa lagu sakhiray, cadcadii baa lagu sakhiray, habeenkaa lagu sakhiray, dharaartaa lagu sakhiray, biyahaa lagu sakhiray, hawadaa lagu sakhiray, arsaaqadii baa lagu sakhiray. malaa'ig baa ka shaqaynaysa arsaaqadaadoon wax kalaba ka shaqaynayn. wax kalaba ka shaqaynayn. afarta malag ee qur-aanku sheegay, jibriil calayhi salaam iyo israafiil calayhi salaam iyo mikaa'iil calayhi salaam iyo malakul mowt, afartaasiba bini aadamka unba u khidmaynayaan. labana ruuxday ku shaqo leeyihiin, labana jasadkay ku shaqo leeyihiin. laba jasadkay ku shaqo leeyihiin. jibriil calayhi salaam wuxuu keenay waxyigii ruuxda bini aadamku ay ku noolaanaysay. mikaa'iil calayhi salaam arsaaqadii roobku ku shaqo leeyahay. israafiil calayhi salaam wuxuu ku shaqo leeyahay insaankan inay ruuxdu in insaanka jasadkiisa qiyaamaha dib loo soo noolay. haddana malakulmowtna wuxuu ku shaqo leeyahay qabd alarwaax, inuu bini aadamka ruuxda ka qabto. bal insaanka sida ilahay u karaameeya u fiirso. khalaqanaa, ilaahay isagayna abuuray, isagayna jirsiiyey, isagaa ilaahay inoo nicmeeyey. yaa ayuha alinsaan, waa daaci weliba ilaahay uu ku yeedhayaa, kaama hadhin welibana. innii walinsu waaljinnu fii naba'in cadiimin akhluqu wayacbudu hayrii arzuqu wayushkaru siwaa'ii baa ilahay yidhi. anigii addoonkayga war baana dhex maray baa ilahay yidhi. war weyn baa naga dhex dhacay. akhluqu aniga abuuray baa ilaahay yidhi, wayacbudu hayrii, heyrkayna uu caabudayaa. anigaa abuuray, heyrkayna uu caabudayaa, heyrkayna uu rajaynaya, heyrkayna uu tala saaranaya, heyrkayna uu isku hadlaynaya, heyrkayna uu ictimaadayaa. arzuqu wayushkaru siwaa'ii, aniga ayaa arsaaqa baa ilahay yidhi, heyrkayna waa ku mahadinaya. arsaaqada ayaa bixiya, allah baa bixiya. khayrii ilaa cibaadii naazil wa sharuhum ilaya saacid baa ilahay yidhi. khayrkayga maalin walba wuu soo degaya addoommahayga, sharkoogina anigu isoo fuulayaa baa ilahay yidhi. maalin walba waa taas koonkao dhan lagu sakhiray. hawadii, biyihii, dabayshii, cadcaadii, dharaartii, habeenkii, arsaaqadii, biyihii waa lagu sakhiray. acmaasha bini aadamka ka soo fulaysa ilahay xaggiisa loo qaadayana waa acmaal ilahay ka cadhaysiinaysa. intaad ilaahay caasinaysa iyo intaad ilaahay adeecaysa iyo maa badan bal aduu is xisaabi. khayrii ilaa cibaadii naazil wa sharuhum ilaya saacid. khayrkaygii wuu u degayaa maalin walba, sharkooguna anuu isoo fuulaa baa ilahay yidhi. tucradu alacmaalu yowma alithnaini waalkhamiis buu nebigu yidhi. maalin kastoo isniina iyo maalin kastoo khamiisa acmaasha addoommaha jirkooga ka soo baxda ayaa ilaahay loo bandhigaa buu rasuulku yidhi. markay addoommadu ay ilaahay caasiyaan, ilaahay jalla wacala u cadhoonaya.
ataxababu ilayhim binicamii wa ana alghaniyu canhum waanu nicmaynayaa baa ilaahay welibana waa isjeclaysiinayaa anigoo u baahnayn oo welibana ka kaaftoon baa ilaahay leeyahay waanu nicmaynaynaa dhinacii walba hareerahan nicmadii ka dhignay buu ilaahay yidhi umana baahnayn haddana bini aadanka anigoo u baahnayn oo waxbana ay ii qabanayn oo cibaadadoodu meel ii buuxinayn oo waxay ii qabanayaan aysan jirin hadday ii wada caabudaanna waxba ima ziyaadinayaan hadday wada caasiyaan waxba igama naaqusayaan yaa cibaadii low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum maa zaada dalika fii mulkii shay-an baa ilahay yidhi xadiis alqudsi addoommahaygiiyow kiinii hore kiina dambe jiniya insigiin haddaad noqotaan sida kiina inigu alla kayaa badan waxba aniga ima ziyaadinaysaan baa ilaahay leeyahay culammada qaar waxay ku fasiraan waa nebi maxamed sal alla alay wasalam sida nebi maxamed ilaahay uu uga yaabay haddaad iga wada yaabtaan baa ilaahay leeyahay waxba aniga ima ziyaadinaysaan low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum maa naqasa dalika min mulkii shay-a haddii sida ibliis ii caasiyey ibliis baa khalqiga ugu qalbi adage ibliis siduu amarkayga u diidu u jabiyey isagoo quwaddayda garanaya haddaad amarkayga u wada diidaan ood i caasadaan waxba ima ziyaadinaysaan baa ilaahay yidhi ataxababu ilayhim binicamii wa ana alghaniyu canhum waanu nicmaynayaa baa ilahay yidhi say i jeclaadaan bas anigoo haddana ka kaaftoomo u baahnayn bini aadanka wayatabaqaduuna ilaya bilmacaasi wa hum axwaju shayun ilaya macsiyad bay isku kay nacsiinayaan iyakoo wax walba aniga iga baahi badan baahida aniga ii qabaan iyo baahida biyaha baahida raxmadayda u qabaan baa ka weyn baahida arsaaqada u qabaan iyo yani baahida raxmadayda u qabaan baahida raxmadaydaa ka weyn iyakoo wax walba iga baahi badan ayay haddana macsiyaddii isku kay nacsiinayaan baa ilaahay yidhi man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin ninka ii soo jeestay ii toobadkeena ee dembiga intuu galo ka soo noqday ii soo noqda baa ilaahay yidhi meel dheer baan uga dhawaaqa waxaan idhaahdaa kuwii toobadkeena ii soo dhowaada ina allaha yabsudu yadahu billayl liyatuuba musii'u nahaar wa yabsudu yadahu binnahaar liyatuuba musii'u lleyl ilaahay gacmihiisuu fidiyaa habeenkii si kuwa maalinkii dembiga ku jira uga toobad aqbalo maalinkiina ilaahay gacmihiisuu fidiyaa si kuwa habeenkii gafka ku jira ilahay uga toobad aqbalo man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin kuwa ii toobadkeena ii soo noqda meel dheer baan uga dhawaaqa waxaan idhaahdaa kuwii toobadkeena ii soo laamba ii soo noqda faman adbara canii minhum caasiyan naadaytuhum min qariibin ayna tadhabu alaka rabbun hayrii kooga iyaka ka mida ee xagga macsiyadda ku talax taga ee kayrkay caabuda ee shahawaadkiisa iyo hawadiisa raaca meel yaroo dhow baan uga soo baxnaayo waxaan ku nidhahnaa ayna tadhabu halkay tegaysaa ma rabbi anigaan ahayn baad leedahay ina badsha rabbika la shadiid ina rabbaka la bilmirsaad ma dheero kama dheero qariibun mujiib jabaabirada iyo fasaqada iyo dalamada iyo kafarada ilaahay uu ka argoostaa uu argoosanayaa maalinka qiyaamaha markay dadku soo baxaan buu rasuulku yidhi xagga dhawaaq baa ka imanaya xagga ilaahay markaasaa la odhanayaa ilaahay wuxuu odhanayaa cibaadii addoommahaygiyow min maalinkaan ini abuuray ilaad adduunyada ka imanayseen waxaad ku hadlaysaan oo dhanna waan maqlaayey waxaad samaynaysaan oo dhanna waan u jeeday waa nii aamusnaa maanta waa maalintaydii aamusa waan argoosanayaa baa ilahay odhanayaa ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii markaasuu ilaahay odhanayaa meye kuwii arsaaqadayda cunaya heyrkayna caabudaayey kuwii doolarka caabudaya doolarka salaadu ku dhaafaysa mee ilaa cibaadadu sanab keliya ma ahine may haddaad qabiilkaaga aad islaamnimada iyo qabiilkaaga agtaada ku weynaado cabdulqabiil baa tahay cabdullahi ma tihid tacisa cabdu dinaari wa dirham buu nebigu yidhi addoonka dinaarka iyo dirhamka caabudayaa khasaaro hoogay buu rasuulku yidhi shahawaadkaaga haddaad caabuddo cabdu shahawaad baa tahay ka qabiilkiisa u ficiltamaya islaamnimadii daaqadda ka saaray ee qabiil ku badishay kaasina waa cabdulqabiila weeyaan man badaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu buu rasuulku yidhi ninka camalkiisu dib u dhiga maalinka qiyaamaha nasabku ka dhashay hore u dhigi maayaan buu rasuulku yidhi ha u ficiltami reetolka waxba kuu tari maayaan ifkanay wax kuu tarayn aakhira waxba kuu tarayaan ifkanay naafici weyda qabyaaladii oo ummadeenni iyo dalkeennii baabiise ma aakhiray wax kuu tari markaas xamiyadda iyo jaahilinimadan iska saarno
man bada'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu ninka camalkiisu dib u dhigu la hadho nasabkiisa hore u dhigi maayaan buu rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam. nebiga nin baa u yimid oo yidhi ninka xamiyad u dagaalamaya iyo ninka u dagaalamaya buu yidhi shujaacad raganimo iyo geesinimo iyo ninka qabyaalad u dagaalamaya iyo maa fii sabiili illaahi ah. jawaamiculxikam baa la siiyey rasuulka xikmad buu ku jawaabo wuxuu yidhi ninka u dagaalama iclaa kalimat illaah kaun baa la dartiya buu rasuulku yidhi kuwa kale waa dabayl waa dambas ay dabayl qaaday weeyaan waxoog ma jiraan bay ka dhigan tahay. marka ilaahay innaka u baahan ayna aladiina cabaduu hayrii ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii buu ilahay odhanaya aawaya kuwii arsaaqadayda cunayay heyrkiina caabudayay ayna hum. arsaaqadda ilaahay buu cunaayey nicmadda ilaahay buu dhex dabaalanayey ilaahayna adduunyada uu ku caasinayay bal reetolkii dartiid buu amarka ilaahay u jabinayey. aaway buu ilahay odhanaya waa nargoosanaya maanta anigune. marka qofku hadduu macsiyadda ku talax tago ma baxsanayo walaalayaal ma baxsanayo. adduunyada intuu nool yaha waa loo siita dheerayn laakiin ma dheeraanayo arrintiisu looma dheeraanayo. laa mucaqiba lixukmih alaysa allahu bicasiizin dintiqaam alaysa allahu biaxkami alxaakimiin alaysa allahu biaclama bima fi suduuri alcaalamiin. waa argoosan ilaahay. marka cibaadadu maaha sanab keliya loo sujuudo maaha waxa lii wixii amarka ilaahay ku garamariyo o dhan waad caabudday ka dhigan tahay. waxa lii wixii ilaahay daacaddiisa ku halmaamiya waad caabudday. haddaad hawadaada raacdo hawadaada waad caabudday. afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah. ilaah macneegu waa maxay luqada carabiga ilaah waxaa la yidhi waa shayga markay dhibaata kugu timaado qulubtaada u ilato xaggiisa hada hu yusama lilaah. man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin faman adbara canii minhum casiyan naadaytuhu min qariibin ayna tadhabu alaka rabbun hayrii. halkee tegi buu odhanayaa meel kaleo tegaysa ma jirte. ilaahay waa muncim isagaa inoo nicmeeyey bashar buu inaga dhigay caqli buu ina siiyey cilmi buu ina siiyey kownkan iyo kaa'inaadku inoo sakhiray hadafku adduunyada inoo keenin ilahay uu noo caddeeyey. nicmadda weyn ee gaarka ee dadka gaarka la siiyey waa nicmat liimaani walislaam. iimaanka islaamnimadu waa nicmad weyn nicmadaasaa ilaahay muslimiinta ku daaqay. nicmadaha kale ee ka soo hadaloo dhan waa nicmad wakti yar ku xadidan weeyaan laakiin nicmat liimaani walislaam ma xadidno. bal qofka adduunyada intuu nool yahay ilaahay amarkiisa qaata ee noloshiisa diin dhammaystiran laga helo ee diintu kashkiisa iyo laabtiisa ay ka muuqato ee iimaanka islaamnimada noloshiisa laga helo adduunyadana raaxa iyo ciz iyo sharaf aakhirana waxaa u dambaysa noloshii daa'imkai abadiga ahayd. adduunyaduna xaqiiqa mahaba. wawasaa biha ibraahimu baniihi wayacquub ya baniya ina allaha astafaa lakum addiina falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. wasiyat lawaliina waalaakhiriin waa maxay? falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. nebi ibraahim calayhi salaam wiilashiisa wuxuu ku yidhi ubadkaygiyow ilaahay diintaasoo inii doortee yayna ajashiyo geeridu nii iman ilaa ininkoo diintaya xadhiggaa haysta maahine. hadday nii timaado ajashu ininkoo xadhiggaa haystana waad liibaanteen. hadday ajashu inii timaado ininkoo xadhiggaa haysanna khasaara waxaad ku dhacdeen weligaan laga soo kamayn. khasaarada adduunyada waa laga kamaa laakiin khasaarada aakhira lagama kamo. dal bay dhibaata ka dhacday waa laga soo baxay dadka badankooga way ka baxeen. quruumo kaloo reer baadiyaha dalkiiba iska qabsaday dadkii wax yaqaaneen mutacalimiintiin way ka soo baxeen. meeshanna waa ka layskaga yar cascasiya baawure layska wada wato laakiin dhibaatada aakhira halkee looga qaxayaa ma jirto meel loo soconayo. haddii la yidhaha hebel qiyaamaha uu khasaaray khasaaro wuxuu ku dhacay uu weligii ka soo kacayn.
qur-aankuna aad buu uga warramay maalinka qiyaamaha yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-an walamru yowmaidin lilah yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuh yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiih yowmaidin yawaddu aladiina kafaruu yubasaruunahum yawaddu lmujrimu low yaftadii yowmaidin bibaniih fakayfa tattaquuna in kafartum yowma yajcalu lwildaana shiba ilahay baa leh fakayfa laa tattaquun miyaanad cabsanayn baa ilahay leeyahy seenad u cabsanayn haddaad khaaliqiina inkirtaan oo nicmadduuna siiye aad inkirtaan ood hawadiina iyo shahawaadkiina aad raacdaan miyaanad ka cabsanayn ugu yaraan maalin ilmaha yar markuu banka qiyaama la joojiyo timihiisa isla markiiba caddaan isku bedeli doonaan yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh waa maalin wejiyada qaarna ay iftiimayaan baa ilaahay yidhi qaarna wejiyadu ay madoobaanayaan yowma yafiru lmaru min akhiihi waa maalinta qofku hooyadii walaalkii ubadkii xaaskii ay kala baxsan doonaan maanta waa laysku yaacayaa adduunyada waa laysku yaacayaa hadday dhibaata timaado dadku dhibaatada maanta waa iska kaalmaysanayaan nin walba kii halkan jooga dadkiisii waxbuu u dirayaa laakiin qiyaamaha cinaceed wax u diri mayso hooyadaadii macaanayd ee ku dhashay haddii la yidhaahdo miisaanka ayaa lagu hayaayo hal xasana ayaa ka dhiman ee si hadday xasanaysa jannay galaysaa qof kasti wuxuu leeyahay maalintaa may ilaa naftayda jannahan ku hubsanaya cid maaqaana buu leeyahay yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a walamru yowmaidin lilah yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim baleg yowma laa yajzi waalidun can waladihi waa maalinta waalidku ilmihiisa wax u qaban karayn cunuguna aabii waxba u qaban karayn qur-aanku maalinta aad buu uga warramay laakiin ayaa maanta kuwaan toobaya iyaase waru hayaba warkana ayuuba saameeyeyba maanta ayuu saameeyey xasan albasri ayaa raabica ayuu ku yidhi maad guursatidaa waxay tidhi imaam xasanow waxay tidhi afar aayadood oo qur-aanka afar mas'aladood oo qur-aanka ku taalla ayaa walwalkii ayaa raaxadii iyo hamigii iga qaada bay tidhi waxay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay in maalinka qiyaamaha dadku ay laba u kala baxa inay dadku laba u kala qaybsamayaan qolana kitaabka midigtay ka qaadan qolana bidixday ka qaadan labadan qoloqoladan ku jiraa iyo caddayn bay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay miisaanka in acmaasha la saaraayo qofka khayrkiisa cuslaadana janno inuu ku waariyaayo qofka sharkiisa cuslaadana naarta inuu ku hoyanaayo labadaa midaan ku jira ay kala caddayn bay tidhi jidka siraadin la marayo qur-aanku ii sheegay dadna ay ku hoobanayaan jahannama dadna naarta u gudbayaan labadaa qoladaa ka mid aha iyo caddayn bay tidhi fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir baa la yidhe fariiqaan ku jira ayaa ii caddayn bay tidhi waa raabica humuum qofka meel u caddahay meeli ka madow dadka zamankan adduunyadana la weyn dadkii qalbigooga iftiinku galayna aakhirada la weynaatay aakhiradii markay weyneeyeenna noloshii adduunyada waa u dhib yaraatay raaxadii adduunyada ifka u soo baxday maxay tahay adduunyadu cish maa shi'ta fa inaka mayit jibriil baa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi intaad doontaba noolow kii dhinta unbaatee qorshaa ku darso wacmal maa shi'ta fa inaka majziyun bihi camalkaad doontana la imo waa laga abaalmarin doonaa qiyaamahiisa ogow waxbin man shi'ta fa inaka mufaariquhu ciddaad doontana jeclow adiga ciddaad isjeceshahayna mawdkani kala geyn doone caalamkana ku nool lahay marka loo eego cawaalimta ka dambaysa caalamkan adduunyadu wuxuu noqonayaa dhibic marka loo eego cawaalimta dambaysa caalamu dunya waa 60 sano 70 sano caalamulbarzakh ayaa ka badan caalamka adduunyada dadkii zamankii nebi aadan dhintay ilaa joogadeenna caalamkaasay ku jiraan qolana way ku cadaaban tahay qolana way ku raaxaysanaysaa waa loogu janneeyey alqabru ima rawdatun min riyaadi aljanna wa ima xufratu min xufari naar buu nebigu yidhi qabrigu laba mid buu noqonayaa ama beerbeeraha jannada ka miduu qofka u noqonayaa ama godgodadka naarta ka miduu u noqonayaa sayidina cusmaan radia allahu canhu mar alle markuu qubuuraha yimaada lilmadaa ka daadanaysay waxaa la yidhi cusmaanow janniya naar marka laga sheekeey ma oydide qabriga maxaad la oydaa markaad aragto wuxuu yidhi qabrigu waxaan ka maqlay nebiga oo leh calayhi salaatu wasalaam qabrigu waa guriga guryaha aakhiro ugu horeeya hadduu qofku halkaa ku nabad galo nabadgelyo ayaa u dambaysa hadduu halkaa ku cadaabo ku khasaarana khasaarihii weynaabuu u gudbayaa buu yidhi
zuraarata ibn abi awfa masaajid buu ka ahaa imaam taabici buu ahaa salaadii subax buu jamcii tujiyey rakacaddii hore markuu suuraddii faatixada u dhameeyey suuratu lmudathir buu ku xijisiiyey markuu marayo faidaa nuqira fi nnaaquur fadalika yowmaydin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir maalinta suurta aan ku dhifanna baa ilahay waa maalin culus weeyaan maalintaa dadka gaaladaana uma fududo baa ilaahay yidhi aayaddaa markuu marayay ninka imaamka taabiciga jaliilka uu dhacay oo nafti baa ka baxday sayidina cumar masaajidkii nebigu soo galay habeen inan yaroo shaab buu arkay oo salaatuleyl tukanaya oo soodka kor u qaadaya markaasuu cumar istaago uu dhegaystay yarkii yaraa markuu faatixadii dhammeeyey wuxuu ku xijisiiyey watuur waa kitaabin mastuur fii raqin uu dhegaystay cumar markuu maraya yarkii yaraa ina cadaaba rabbika lawaaqic maa hu min daafic halkaa markuu maray cumar uu suuxo uu dhacay gurigiisii baa la geeyey 30 maalmood buu xanuunsanaa xanuunkiisana wuxuu ku yimid lama ogeyn sayidina cabdiraxmaan bin cawf ayaa loo keenay cunto isagoo sooman markaasuu qur-aankiibuu kala furay waa qabla alfutuur weeyaan qur-aankiibuu kala furay markaasuu akhriyey ina ladayna ankaalan wa jaxiiman wa طacaaman daa gusatin wa cadaaban aliima طacaamka ahlu naarka aayaddu ka warramaysaa aayaddaa markuu taabtay sayidina cabdiraxmaan uu oyey ilaa maalintaa waa furi kari waayey sidiibuu ku seexda habeenkii gaajo nebiga calayhi salaatu wasalaam xalaqaadkiisii ka mida ayuu nebigu sal alla alay slam ku akhriyay aayaddaas waxyigiibaa ku soo degay isla markiiba asxaabtu waxyiga u gudbiyey yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara kuwii ilaahay nebiga rumeeyow duulkii ilaahay nebiga rumeeyow lafihiinni iyo ehelkiina naarta kala baxsada baa ilaahay yidhi ee gaajo kala baxsada lama odhan gaajaa laga soo yaacay dhibaato keliya laga soo yaacay 10 dhibaataa maanta faraha lala galoo la laami kari leeyahay quu anfusakum waahliikum naara mufasiriintu waxay ku fasireen lafihiinana diinta barta ubadkiina iyo ehelkiinana diinta bara baa ilaahay yidhi waxaa yeele diinta lagaga badbaadayaa naarta aayaddaa markay soo degtay waquuduha annaasu walxijaara markuu nebigu aayaddaa ku akhriyey nin xabashiga nebiga hor fadhiyey majliskiisa lilma ayuu sii daadiyey uu ooyey oohintiisiibuu ishaysan kari waayey ilaa jibriil ka soo degay calayhi salaam yaa muxamed kan hoostaada ku weeye waayo markaasuu yidhi yaa jibriil waa addoon reer xabashaa oo ahlulkhayr oo mu'mina aayaddaasaan ku akhriyo uu adkaysan kari waayey buu yidhi markaasuu yidhi yaa jibriil yaa muxamed ilaahay wuxuu yidhi wacizatii wajalaalii wairtifaacii fawqa carshii laa tabkii caynu cabdin fi dunya min makhaafatii ilaa akhartu daxikaha fi ljanna ilaahay baa leh sharaftayda weynidayda carshigayga sare ayaan ku dhaartee addoommahayga ka mida adduunyada dusheeda ma ooyo cabsadayda lama ooyo haddii la helose maalinka la qatan yahay la qaawan yahay qiyaamaha ayaan qosolkiisa badyaabaa ilaahay yidhi 60 sano ayuu ku dhammaysanayaa taacadda ilaahay iyo cabsidiisii iyo khawf iyo khashyad iyo bukaa abaalgudkiisu wuxuu noqonayaa maalinka la qatan yahay la qaawan yahay ayuu carshiga hoostiida kursi loo dhigaya uu qoslaya allah inaga dhiga kuwaas fadadkii hore quluubtoodu markuu iftiinku gale nuur aliimaan iyo nuur alcilmi iyo nuur alqur'aan iyo nuur alhidaaya markay 4taa nuur qalbigooga uu saameeyey aakhiradii baa u caddaatay qur-aankay fahmeen waxyigiibay fahmeen cumar iyo abubakar markuu nebigu intiqaalay calayhi salaatu wasalaam ayay yidhaahdeen abubakar baa ku yidhi cumarow ummu ayman inooge hambuuqanne sidii nebiguba u ziyaaranaya hanu ziyaaranay inooge markaasuu wayse soo raaceen ummu ayman bay u yimaadeen markaasuu mar alliya markay aragtay abubakar iyo cumar oo wada socda ummu ayman way lilmaysay markaasuu abubakar baa ku yidhi yaa ummu ayman miyaanad ogeyn nebiga ilaahay agtii inay u khayr badan tahay ma nebiga waad nagu xasuusanaysaa macnuhu weeyaane waxay tidhi waan ogahay nebi maxamed alla agtii inay u khayr badan tahay waan ogahay waxaan la ooyay geeridiisa kama ooyine warkii samada nooga imanaya baa naga go-ay bay tidhi cajiib bal ummaddu siday qur-aanka ugu xidhneed u fiirso dhegayso oo faham gabadhay walaasheeda muslimaday zamanka dadku siday qur-aanka ugu xidhnaayeen eeg rag iyo dumar maantana maxaa lagu xidhan yahay maanta iimaanku waa maxay takdiibun binnadar wa tasdiiqun bilkhabar waxay naf ishu arkaysoo dhan beenee waxa samada ka yimidee warana rumee hada huwa aliimaan qur-aanka iyo xadiiska rumee warkoogana qaado
wixii labadaa ka baxsanna ha yeelin maxaa yeelay waa been waxba kama soconayaan labadaasunbaa dhaba labadaa warkooga inaad qaadatana farad bay kugu tahay dadkii markay warkaa qaateen adduunkan iyo aakhiro way ku liibaaneen marka nolosha adduunyadu maxay tahay ba walaalayaal maxaa la iskugu daalinba qadra daruura adduunyada ka isticmaal ha dhex degin guri bilaa musqula ma dhex karto laakiin musqusha la dhex seexan maayo markay xaaja ku qabato unbaad gali waad ka soo bixi haddii uu yidhaahdo qofku ka warrama intuu firaashkii qaato yidhaha musqushaan dhex seexanaya maxaa la odhanayaa majnuun adduunyadu waa caynka haddii uu yidhahdo qofku tanun baan aqaanaa tii dambe ma aqaana qorshahayga way ka baxday tanun baan aqaanaa hadduu yidhahdo waa majnuun uu waalan yahay qofkaas ilaa dabiibuu u baahan yahay adduunyada isticmaal lama diidano laakiin sideed u isticmaalaysaa sida ninka guriga la musqusha uu isticmaalo adduunyada u isticmaal qadra daruura adduunyada ka qaado qadra daruura meeshaad u socoto waa aakhiro weeyaan hayloobin ha halmaamin arsaaqada kasbiguna inuu ku dhaafin daacadda ilaahay arsaaqadii kasbigaagu inuu ku seejin الرزق بقدر المقدر باليدي أرزاقده وأنت إلهي كو قدرين ويان واحد زيادة مهلس أرزاقده وأنت إلهي كو قدرين عالم كان وعالم ير مرك الله يقع عالم كقبرك عالم كقبرك مرك الله يقع عالم كقيامها ويرانا يا عالم كقيامها مرك الله يقع عالم الجنة والنار عالم كسنة ويرانا يا سنة لكن محل لقوا بدبادية وحل لقوا بدبادية هل كان لقى قادنيا هل كان لقى قادنيا ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا إلهي نساعر وحيري إن آدنوا ما لنتي أدويدا دمنيسي ما لنتي أدويدا إيمانيسي وحيه إذا كنا الشيء أدو أويا دتكن أكتر لا يفرح سيهين عنو قمركو دلنا يو بغاق وقيل يسقو لكن دتكو يفرح سيهين فاحفظ لنفسك نفت هذا انت نوشه إلاليو أمرك إلهي كو إلاليو دينت إلهي إلى السؤو إيمانك إلى السؤو سلان نمد إلى السؤو أمرك إلهي هسيدين سمال انت دمانيسو هذا دويد وقتك تهدقو فرحسن دتكو أكتر أيكو أويان دتكو والله وضع ننا دويد وحكتك يسقو فرحسن ننا ومستريح ننا ومستراح ننا وننا دويد اللوغة الراحيي ودارتي آخرة الراحة دي بالله قادي ننا دمشيدي سمركو دنتددكي بكر راحي سنايا هبل مد انتها قاربا ورنا يبقو دنتي كاسي فتناوي بوها يبقو دنتي ننا ونن مستراحة الدويدي باللوغة الراحيو عالم التعب باللغة قادي عالم الراحة يا لقيي عالم كي وحي بني آدم كوبهنا لقو دما يستري بالله قادي محايا لأدويد نولشيدو مد ما يسترنو هداد شباب تاي بري واد قبوبي هداد ما انت عافمال قبت بري واد بكوني هداد ما انت غني تاي بري واد فقيروبي هداد ما انت مروكسن تاي بري واد هداد ما انت فرحسن تاي بري واد مروغوني هداد ما انت الشباب تاينا بري واد قبوبي هداد ما انت نوشاين بري واد من الدويد مد ما يستر ميسو لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان إن آدم هدي لسيه تك ذهب وصعد بو نبي يقولي كل بعض بو جعلان بو يري هدي كل بعض لسينا قصد حاد بو جعلان بو يري إن آدم أفقي سوحك لما بو حيانه قبرك مركا اللي قليه عيدا لقو قرون بو درقابو رسولكو يري الدويد اللي ما درقو ما درقيس حايا لو قمت سلقلين بقى شهوات وحي بني آدم كوبا هاي الدويد اللي قمت ما يسترين دار باجرت اللي قمت ما يستر وحي نفته وباهنتحي هذا الصباح دي بلو فيرسو مقالة دا دوتون كمالها ناتر هذا سانتر فيل بنرانكو وسط المدينة وضدها هان ويجي أسعة مقالة دا برتمهيقا أيها الصباح دي مارك تاني الرشور والزحمة دا هذا سرادتك هالكيتا جيسان وحي كلها يان وانشغتك جينا قلبتنا وضدها كلا يا الزحمة دا وعديديا هذا ترى هالكيتا جيسان ويقول لي والراحة تجيا قولي جيبا تجيا ريرك يجي ورد دي بنو تجيا ماشي الشغادنا واميل قونية ماشي الراحة واميل قونية الدويدة ماشي اللي قول راح يسنية ماها
halkan shaqaa loo yimiday meesha raaxada waa loo noqon doonaa idaa dakhala ahlu ljannati aljanna yunaadii munaadin bianna lakum an taxyaw falaa tamuutuu abada tasixuu laa tasmuu abada tancamuu laa tab'asuu abada tashubuu laa tahramuu abada ahlu jannahu buu rasuulku yidhi markay jannada galaan 4 shay baa loo bishaaraynayaa waxaa la odhanayaa ahluljannow maanta laga bilaaba waxaad leedihiin nolol aan dhimasho dambe lahayn shabaabnimo aan gabow dambe lahayn nicmad aan dhibaato dambe lahayn caafimaad aan xanuun dambe lahayn baa la odhanayaa ayna dunya xadiis buu nabigu ka sheekeeyey ibnu mascuud uu wariyey yaa adnaa ahla aljannati manzila jannada dadka galaya ka ugu darajo yar buu nabigu maalin ka sheekeeyey wuxuu yidhi waa nin ka soo baxaya jannada buu nabigu yidhi jannadu ka soo baxaya gurguurad buu kaga soo baxayaa albaabkii jannadu ilaahay buu hor imanayaa ilaahay baa odhanaya cabdi addoonkaygiiow oradoo jannada gal waa taase albaabkii jannadu imanaya indhihiisii baa looga dhigayaa jannadii inay buuxsantay markaasuu noqonayaa yaa rabbi jannadaad gal igu tiri way buuxdaa meelaan ka dega ma haysto markaasuu ilaahay odhanayaa ma buuxday orodoo noqo gal haddana uu imanayaa mar labaad mar saddexaad markii afraad baa ilaahay odhanayaa orodoo jannada gal oo teg oo gal jannada adduunyadii iyo 10 baad leedahay keligaasi adduunyadii imisa 10 waa saaxada arlada weeyaan amaa waxa jannada yaalla adduunyada ma yaallin adduunyada maxaa yaalla markaasuu odhanayaa ataskharu bi ilaahu ma igu dheeldheelaysaa aw tadxaku bi mise waad igu qoslaysaa adigaaba boqorkiye maskaxdiisay ka dhaadhacayn arrintaas adduunyadii iyo 10 baa lagu siiye soco imaam qurtubi kitaabu tadkira wuxuu ku sheegay ninkaasi madaxweyne marka dawlad loo magacaabo koormeer buu sameeyaa dalkao dhan buu soo maraa gobollada tuulooyinka distrigyada meel kastuu soo maraa wasaaradaha ninkaasi wuxuu yidhi halkanuu ka bilaabayaa jannadiisii halkanuu ka bilaabayaa ilaa dhinaca kale uu ku soo wareegayo meesha uu mar marana mar labaad isha ku qaban maaye safarkaa wuxuu ka qaadanayaa 1000 sannadood imise sano 1000 sannadood fayaati wuxuu imanayaa albaabkii jannadu isa soo taagayaa xawralcayntiisii baa ka hor imanaysa tanduru ilayhi wayanduru ilayha buuhi ibnu cabbaas way eegi eegmadoo keliya ayaa qaadanaysay buuhi 40 sannadood imse sanaad dalka joogtaan annadra fad tucaaniquhu wa yucaaniquhaa uu ku boodayaa way ku soo boodaysaa way isku dhegayaan waalmucaanaqatu qadra 40 sana buuhi cabdullahi ibnu cabbaas mucaanaqada oo keliya waxay saysanayaan 40 sannadood oo kale u soconayaa maqsinkii cuntadu ay taallay buu fadhiisanayaa 700 sano uu cuntada cunayaa bas muddada u yar uu cuntada cuno waa 700 sano ayna dunya maxay tahay adduunyadu xawralcaynta waan ka sheekayn lahayna kolley haweenkuna waa nala fadhiyaan bayaanka waa nala dhegaysanaya muxaadarada xaqoogana waan sheegaynaa cajiib nicmadaasaa ilaahay dadka mu'miniinta u diyaariyey yatuufu calayhi 10,000 khaadim buu nebigu yidhi ninka jannada galaya dadka jannada gala ugu jaga yara ugu faqiirsan ee ugu faqiir lama dhihi kare ugu jaga yar waxaa dushiisa dawaafaya buu nebigu yidhi 10,000 oo khaadim baa dul dawaafaya khaadimka kale arki maayo khaadimkan sharaabka iyo cuntada uu sido ku kale ma sido guryaha jannada buu nebigu yidhi sida guryahan adduunyada ma ahine sidaasay carshiga uga laalaadaan buu rasuulku yidhi asxaabtu way yaabeen yaa rasuulallah guryaha sideen u galaynaa wuxuu yidhi sida shimbirahaad u duulaysaan ad u galaysaan buu yidhi cuntaada cunaysaan biyahaad cabbaysaan sindhe iyo kaadimidna noqoni maayaan cuntadu waxay isku beddelaysaa daacadaasoo ka udgoon miskiga sharaabku wuxuu isku beddelayaa dhididkaasoo isaguna miskiga ka udgoon ma dhimanayaan ma gaboobayaan ma daalayaan ma gaajoonayaan ma harraadayaan ma bukoonayaan calolxuma ma jirto qabyaalad ma jirto qabyaalad halkaa may socon ma jirayso wanasacnaa ma fii suduurihim min khillin albaabka jannada markay joogaan 2 shayba waa laga dahirayaa hadday jirhkoogiina jannada intay gelin baa la bedelayaa laabtooda wixii ku jiray khilli iyo xasad iyo dabeecaddii xunayd iyo buqdigii iyo wixiina halkaasaa lagaga reebaya
laa yasmacuuna fiiha lagwan ilaa salaama wax kala maqli maayaan salaama bay maqlayaan waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamun calaykum bima sabartum nazulan min ghafuur salaamun qawlan min rabbi raxiim dhexdoodana waa salaam malaa'igtuna way salaami xagga salaamkana salaam baa ka imanaysa salaantee ka imanaysa salaamtaa waxay ka timidaa la odhanayaa min alxayi aladi laa yamuut ila alcabdi aladi laa yamuut diinta iyo iimaanka islaamnimadu waxay bini aadanka siinaysaa sifaadka ilaahay ka mid ah alabad sifat alabad buu yeelanaya qofka bini aadamku markuu jannada galo min alxayi aladi laa yamuut waxaa la odhanayaa salaantani waxay ka timiday ilaahay noolahay aan dhimanayn waxay u imatay addoonka ilaahay isaguna aan dhimanayn haddee toole nicmaddaa ilaahay noo diyaariyey nicmaddaa waxaan ku helaynin waan haysanaa iimaankaan ku helaynaa islaamnimadaan ku helaynaa haweenkuna ilaahay waa u nicmeeyey oo nebiga ayaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ida almar'atu ayima imra'atin maatat wa zawjuha canha raadin dakhalat aljanna raggu baa la yidhi waxyaabaha jannada ragga loogu ballan qaaday waaba la adkeeye laakiin dumarku waxyaabaha jannada ku galeen waaba wax iska dhib yar naagta gabadha dhimata buu nebigu yidhi haweeneyda dhimata iyaduu ninkaygu raadi ka yahay jannaday gashay buu rasuulku yidhi rasuulku xadiis waxa uu ku yidhi dadka salaada tukada albaab bay jannada ku leeyihiin la yidhaha baabu salaa dadka soonka laazima albaab bay ku leeyihiin baabu rayaan la yidhaha dadka sadaqada bixiya albaab bay ku leeyihiin baabu sadaqa la yidhaha dadka jihaadka u dadaala albaab bay ku leeyihiin baabuljihaad la yidhaha abubakar baa yidhi biabi anta wa ummi ya rasuula allah hooyaday aabbayba waan kugu fidayn oon kugu furanaye 8 albaabay jannadu leedahay nin ka galayo looga yeedhaya ma jiraa buu yidhi markaasuu nebigu uhi nacam wa arjuu an takuuna minhum haa way jir rag 8 albaabee jannadaba looga yeedhayo la odhanayo kan ka soo gal way jiraan raggaa inaad ka mid tahay baan rajay buu rasuulku yidhi abubakarow abubakar keliya ka geli maayo 8 albaabee waxaa la galaysa gabadha saalixadda ida almar'atu sallad khamsahaa wa saamat shahrahaa wa ataacat zawjahaa wa xafidat farjahaa hadday haweenaydu buu nebigu yidhi 5 waqtina tukato bisha rabadaanna ay soonto farjigaygana xumaanta ka dhowrsato ninkaygana ay adeecdo 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi 8 albaabee jannadu leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi hadday gabadha laga hela 4 camal bisha rabadaan oy soonto 5 waqti oo ilaaliso xumaantoo ka dhowrsoonaato iyo zawjkayga way adeecdo 4 gabadha laga hela buu rasuulku yidhi 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay abubakar daba joogsanay la geli doontaa qiyaamaha waa la weydiiyey nebiga gabadhu way weydiiyeen saxaabiyaadku haweenka muuminaadka ayaa xuralcaynta midkee fadli badan baa lagu yidhi caaishaa weydiisay wuxuu nebigu yidhi gabadha muuminadda ayaa xuralcaynta ka fadli badan buu yidhi waxay tihi maxaan kaga fadli badannay waaba xuralcayn oo ilaahay baa sameeyo nuur baa laga sameeye wuxuu nebigu yidhi bisalaatihinna wa siyaamihinna wa taacatu aswaajihinna waxay kaga fadli bateen xuralcayntu haweenka muuminaadku xuralcaynta waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan salaada ay tukanayaan iyo raggooga ay adeecayaan fadligiina iyo masabkiina diinta islaamku meel sarayna dhigtay nin baa nebiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo horaanba wuxuu nebigu yidhi hooyadaa haddana hooyadaa haddana hooyadaa haddana aabbaha buu rasuulku yidhi dhegayso gabadhayda muslimaday diinta islaamku hoos kumay dhigin xaqaagiina may qarine bal diinta islaamku xaqaagii kor bay u qaaday kor sayidina cabdullaahi binu cumar buu nin u yimiday lacalla hada alxadiis waa marfuuc weeyaan cabdullaahi binu cumar buu u yimiday nin markaasuu yidhi yaa ibnu cumar hooyaday ii dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay intaasoo mayl ayaan degta ku soo qaaday waan dawaafsiiyey carafa ayaan geeye xaqeygii ma guday mise ma gudin wuxuu ku yidhi xaqeygii kugu lahaydood gudda iska daaye maalinkii ay yaraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysay inaad ka siibatay maalinkaa keliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygii maad soo celin buu ka yidhi xaqiina waad leedihiin xaqiina diinta islaamku meel bay ku tiirisee adiguna isku xadgudbin walaasheeda muslimaday dhaqan baad leedahay diin baad leedahay islaam baad tahay muuminad baad tahay waxaad ku danyataa dadkii haweenkii ilaahay adduunyadan uu raalliga kaga noqday waddadoodii mar
maryam binta cimraan ku dayo, aasiya bintu masaaxim ku dayo, faaduma binta muxamed ku dayo, khadiija bintu khuwaylad ku dayo. dadkaasaa adduunkan iyo aakhira ku liibaanay. sida waxa uu nebigu yidhi sal alla alay wasalam, haweenka ilaahay 4 buu ka doortay buu nebigu yidhi. 4taasina waa maxay? waa maryan, waa nebi ciise hooyadii, waa aasiya weeyaan. waa aasiya guriga fircoon bay iyay deganayd, halka baydka guriga ninkaa rabbinimada sheegtay guriga dhexdiisa ilaahay ku caabuday aasiya. faadumana waa ina muxamedo tacab iyo rafaadba waa u dul qaadatay, adduunyadana way ka saay qaadatay. waa khadiijo oo qofkii u horreeyey diinta islaamka soo galay waa khadiija. qof ugu horreeyey oo diinta islaamka dhaqaalo ku bixiyana khadiija ahayd. diinta islaamku meel sare ayna dhigtay. raabica ayaa la weydiiyo lagu yidhi, raabicay haweenku imaamna ma noqdaan, amiirana ma noqdaan, maxay ku dhacday? nebiyana ma noqdaan, maxay ku dhacdaan la yidhi. waxay tidhi gabadh xikmad lahaydoo 4taaba annaka unbaa dhallabay tidhi. subxaan allah, caqligu waa cajiib. caqliga allah inoo hagaajiyo. boqoradana annaka unbaa dhalla, imaamyadana annaka unbaa dhalla, nebiyadana annaka unbaa tarbiyadanoo dhalla bay tidhi. saacaddaa gaadhay malaha. allah ina fahamsiiyo. khayrulkalaami maa qalla wadalla. ilaahay diintaa buuna siiye islaamnimada. diintaa inaan adkaysanno oo nicmaddaa u aragno, nicmad u aragno waa nicmade ayaa la doonayaa walaalayaal. oo dalkanaan imanay dhaqankeennii iyo diinteennii iyo akhlaaqdeennii iyo caqiidadeennii inuusan waxba ka bedelin. ittaqi llaaha xayumaa kunta buu nebigu yidhi, meeshaa doontaba joogoo ilaahay ka yaab. badbaadadeenna aan ku badbaadaynana dalkan iyo meel kastan waxa weeyaan waa inakoo maaragtaanay dhammaanteen istaagna halkii nebigeennu istaagay calayhi salaatu wassalaam. ilaahay wuxuu ina siiyey dadaal. hadday muslimiintu dadaalkaa fahmaan ay u kacaan, iyakuna ay badbaadayaan, usradooda iyo dadkoogana ay badbaadin karayaan. mu'minka dhabta ma bedilmay, waxbuu bedilaa. lama saameeyo, waxbuu saameeyaa. dhowr nin oo caraba ayaa ka tegay khilaafadii dawlatul amawiya. ardul islaam bay ka tegeen. indonesia iyo malaysia u tegeen tijaara iyo business calaa manhaj alislaam bay ku tijaaraysanayeen. akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii baa lagu islaamay. akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii 8 kun buu ka diray cumar ka diray maaragtaanay madiina. masar buu u diray. 8 kun baa dalkii oo dhan badishay. mu'minku markuu u socdo hadafkiisu markuu yahay iclaa kalimati illaah, ixyaa addiin fi lcaalam, nashr nicma. mu'minku markuu ka dhiga hadafkiisa inuu islaamnimadan qaado, caalamka gaadhsiiyo, inuu nicmadan ummadda ugu yeedho, inuu diintan caalamka uu meel walba u maro. hadafkaa markuu muslimku hadaf ka dhigto, uu u safro, uu dhaqaalo u bixiyo, u dhaxo, u dhoofo, ma bedilmaya, isagaa wax bedilaya. lama saamaynaya, isagaa wax saamaynaya. ta keliya aan ku badbaadayna waa maxay? ee xifaadadeennu ay ku jirtaa waa inakoo ilaahay diinkiisa ka shaqayna. rag iyo dumar, ummaddan wuxuu kaga tegay nebigu calayhi salaatu wassalaam. manhajka uu kaga tegay waa maxay? 3 shay zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd: cilmi iyo camal iyo dacwa. 3daa zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd. nin kastoo saxaabiya, gabadh kastoo saxaabiyada waxay ahaayeen caaliman bidiinihim, diintooda way yaqaaneen. caamilan bidiinihim, diintoodana way ku camal falayeen. daaciyan ilaa diinihim, diintoodana ummadda way ugu baaqayeen. alcilmi walcamal waddacwa. 3daas waxay ka soo baxeen manbacii masaajidkii nebiga calayhi salaatu wassalaam. kuma tegin nebigu ummad maaragtaanay adduunya ku hamoonaysa, kagama tegin caalamkee. wuxuu kaga tegay ummad aakhiradu ay la weyn tahay, oo diintu ay la weyn tahay, oo iimaanku uu la weyn yahay, oo islaamnimadu ay la weyn tahay. cuqba binu naafic madiinu ka dhaqaaqay. masar buu yimiday, libiya ayuu yimiday, muxiit alatlas maqrib intuu istaagay. zamankan dalka waaga zamanka dalkanaa joogno lama aqoonin. faraskii intuu badda geliyey buu yidhi, yaa rabbi low camtu waraa hada albaxri unaasun laballaqtu calayhim laa ilaaha ila allah. yaa rabbi haddaan ogahay baddaa dad inay ka shisheeyaan, laa ilaaha ila allah baan gaadhsiin lahaa buu yidhi. alaan arjac ila almadiina, haddaan ku noqonayaa dalkaygii madiina. maxaan u noqonayaa? lianna alarda intahat, lianna dhulkii baa dhammaaday buu yidhi. haddeetoole uu celiyey faraskii. jazaa'ir buu markaa ku dhintay, halkaasaa lagu aasay. madiinuu ku barbaaray. cukaasha radia allahu canhu ree madiina ayuu ahaa, waxau ku aasan yahay suudaan. abu ayuub alansaari ree madiina ayuu ahaa, istaanbul buu ku aasan yahay. abi waqaas ree madiina ayuu ahaa, siin buu ku aasan yahay. cabdiraxmaan alkhaafiqi ree dimashq buu ahaa, faraans buu ku aasan yahay. bilaal ree maku ahaa, wuxuu ku aasan yahay dimashq. kam min asaxaaba caalamka ku aasan, kam muslimiina dalkan maanta ku aasan.
laakiin hadafka asxaabtu u socdeen iyo hadafka muslimiinta maanta u socdaan waa laba aan islahayn oo isku dhowayn weeyaan. saamaxa hoosta waxba haygu qabanina. hadafkay u socdeen iyaku iyo hadafkaan maanta u socna iskuma dhowo walaalayaal. lidaalika waa inaan niyaddeena bedelnaa. dalka niyaddaan ku imanay waa inaan bedelnaa. waa inaan bedelnaa. waa ilaa haddii kale khatar baan ku jirnaa. niyaddeenni waan bedelaynaa. maxaanu bedelaynaa? inaan dalkan joogno laakiin aan diinta ilahay ka shaqayno oon ka bilowna shaqada diinta. muslimiintii hor dalkan timid ime aaway dadkii yimide dalkan ayna hum maanta? inta soo galaysa maskiidkaa ku farxin, ziyaaraadka bax, jawladda bax, raac jamaacadada dibadda u bax, waad yaabi doontaa. tastaqrib ayaa u soo baxaya. innaka halkii nebiga taagana calayhi salaatu wasalaam, man lam yahtama biumuuri lmuslimiin falaysa mina buu nebigu yidhi, falaysa minhum. ninka muslimiinta dhibaatadooda ka walwali ka murugoon naga mid maha buuhi annaka, ama muslimiintaba ka mid maaha. dhibaatada ugu weyn ee islaamka haysata waa maxay? bucdu can iddiin. dhibaatada ka weyn waa dhibaatadee ilahay oo laga fogaaday dhibaatada ka weyn. allah ina fahamsiiye. dee niyadda ma bedelaa? haa dhahada dee bal wixiila niyaddii waan bedelow gacanta taag. mustaacidiin dhahada. oday baa beri nagu yidhi wacdigiinaasi uu macaan yahe bixitaanka on maad ka reebtaanaa buu yidhi. kollay meel ho u baahan hadal wax ma ka taraa? yaa saafir tajid ciwadan caman tufaariquhu wansab faina aladii alcayshi fi nnasabi inii ra'aytu rukuuda almaa'i yufsiduhu in saala taaba wain lam yajri lam yatibi. alusud lawlaa firaaqu lardi maftarasat wasahmu lawla lqawsi lam yusibi buuhi imaam shaafici. libaaxu muxuu libaax ku noqday? kayntiisuu libaax ku yahay. muslimku wuxuu qiimo ku yeelanayaa markuu ka shaqeeya shaqada diinta. hadday biyuhu fadhiistaan waxaan ogaaday buuhi imaam shaafici biyuhu inay xumaanayaan, hadday socdaanna inay biyuhu daahir yihiin, cidda kalena ay daahirinayaan. ummaddan socodkay qiimo ku leedahay walaalayaal. fa insha allah niyooda inaad socotaan, ziyaarta dadka socda. nebi maxamed baa socday calayhi salaatu wasalaam. khayru man daba calaa wajhi alardi waa ina cabdillaahi weeyaan. ma ka fadli badan tahay adigu? wa qaaluu ma lihada arasuul yaakulu aطacaam wayamshi fi laswaaq lawlaa unzila ilayhi malak fayakuna macahu nadiira. waa maxay kan suuqa wareegaya nebiga lagu yidhi? u wareegay halkay joogaan buu dadka nebigu ugu tegey. dadku waa laba weeyaan, muqbiliin iyo mudbiriin. dad khayrka jecel iyo dad khayrka aan jeclayn. iyo maa badan 90% ma soo galeen masaajidda. dacwadda waa maxay? dacwadda masaajidka laga jeedinayana waa dacwatu raaqibiin baa la yidhaha. dacwadda dibadda la tegayna waa dacwatu hayr araaqibiin baa la yidhaha. labadana waa loo baahan yahay. barkadda biyaha haddii laga darsado biyo lagu shubi waayo maxaa dhacaya? haddii dadka dacwadda loogu yeedhi waayo masaajidda inta soo galaysa way dhammaan, way dhoofayaan. mid baa dhiman, mid baa noqon, mid baa xanuunsan, mid baa waalan. masaajidka cidluu ka soo bixi. marka waa in la helaa dad shaqadii dibadda qabto ummadda kusoo xidha culummada iyo masaajidda. marka jamacaadku wax kale lama socdaan, wax jadiida ma wadaan. mujtamacan iyo waxaa isku xidhayaan iyo culummada masaajidda. faham walaal. fa marka allah ina waafajiyo, allahna inagu anfaco. le jamaacaduna berri weyna la joogaanna soo ziyaarta. usbuuc kadibna kanada inay u gudaan baa laga yaabaa. waana nii soo noqon doonaa. dee wixii diyaara inay ile martidu xaq bay leedahay ma tahay samaha ya. dee martida in la yar dhaweeyena xaq bay u leedahay. maxaad u dhaweyn leedihin? isku noqda in sha allahu tacala. waan ila joognaa. allahna khayrkana waafajiyo. wa sala allahu calaa sayidina muxamed.